The stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we're family. Hold me, let's escape all this reality. muddo 6 sanadooda wax ubada umay dhalay ninkeeda balse saaxiibteeda ayay u guurisay ninkeedii maalinkii arooska ayaa la yimi maxaa dhacay barnaamijka aynu ku daaqaadayna ha yeeshee daawada intaynan barnaamijka u guda gelin asxaabtaadan la wadaag kusoo dhawaada barnaamijka taariikh qodo dheer leh ayaaba qorto qalbigii dirgaxee sawirkii qadrayaalay calafkii kala qaaday ayaa labadeenna qoraal isku raacshay muddo 6 sano ku dhow ayaan ku dadaalayay bay tiri aniga iyo odagaygu in aanu awlaad yeelano ama aanu helno laakiin buu tiri nooma suurta gelin taasi anigu waan ku qancay muddo dheer ayaanu sidaasi ku samiraynay waqti kadib waxaanu go'aansanay bay tiri oo aanu go'aan ku gaadhnay in aanu booqano dhakhtar degan magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi Itoobiya waan jecelahay carruurta muddo dheerna waan doonayay inaan carruur dhalo ugu dambeyntii dhakhtarkii aan u tagnay wuxuu ii sheegay inaan anigu awr qaadi karin qalbi jab weyn baa nagu dhacay labadaydiiba sidoo qalbigaygu yahay qalbigaaga ayaa labadeenu mar wada qasalaaye wadaya nafta hooyo cabduu wada qaado ugu dambeyntii dhakhtarkii aan u tagnay wuxuu ii sheegay inaan anigu awr qaadi karin qalbi jab weyn baa nagu dhacay labadaydiiba ninkaygii qalbi jab iyo moral jab ayaa ku dhacay aniguna waa niyad jabay moral ahaan ayaan u dhintay sidaas awgeed waxaan isku dayay inaan ku qanciyo ninkayga inuu guursado gabadh kale aniguna waa niyad jabay moral ahaan ayaan u dhintay sidaas awgeed waxaan isku dayay inaan ku qanciyo ninkayga inuu guursado gabadh kale wuu iga diiday waqti dheer kadib waxaan ku qanciyay anigoo kaashanaya sodohday in uu guursado gabadh kale ugu dambeyntii wuu iga aqbalay sidii aan la jeclaa inuu yeelo markaas kadib arooskiisii anigaa soo qabaqaabiyey si wacan waa ugu dhacay waxaana u guuriyay bay tiri saaxiibtaydii khaaska ahayd oo aan u shukaamiyey dad badan baa igu yidhi waxaanaad samaynayso waa khalad wax wacan maaha laakiin jacayl aan u hayo ayaa igu kallifay ninkayga isagana inuu jecel yahay waan ogahay sidaasi daraaddeed jacaylkayga uu hayo dartii waa inaan u yeesho dulqaad waxoogaa igama gelin hadalka dadka kale igu xeeran ee odhanaya waxaan maxaad u samaysay waxaani waa khalad miyaan dhiig kugu jirin miyaad damiir lahayn miyaanad masayrin erayada noocaasi ayay igu celceliyaan bay tiri hadda waxaanu nahay qoyskaasi oo ku faraxsan noloshooda anigu waan ku faraxsanahay bay tiri inaan ahay xaaskiisii ahayna xaaskiisii hore ahna ahay bahdii hore weynay gabadhan uu qabaa waa saaxiibtaydii ogeyd markaanu isku shugaansanaynay ninkayga waanu qof aan aad isugu dheerrahay cidaan maanta kula jecelahayna ma jirto ubadka ilaahay ayaa bixiya balse aniga cilada ayay noqotay dhakhtarkii waxa uu sheegay inaan anigu ma raacaan dhalayn balse waxay sheegtay gabadhani in dhasho ilaahay bixiyo haddii ilaahay qadarino ilaahay siinayo waan ku qanacsanahay bay tiri awoodda alle walaal ii soo duceeyo bay tiri haddaan walaashiinahay fadlan daawade aynu ducayno gabadhan walaasheeda Soomaaliyeed in ilaahay ubad khayr qaba ilaahay siiyo oo dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda u anfaca وأنا محمد علي داها سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي قند عاشق قدينا وصاغدي غير المرقوقة أيا بقرو
قيسي ليلو جعيل كلا قادر wadda dhiigayga qiimaha magacaaga qalinkan ku qoraayo qatisan ka shuba qumanaylinay qumaney halbowlaha qaada siduu qalbigaygu yahay qalbigaaga ayaa labadeenu mar wada qasawaaye wadhiya nafta hooyo cabduu wada qaado